28 Oktoobar 2017 ayay galeen gudaha hotelka Naasaha Hablood kadib qarax lala eegtay ilinka hore ee hotelka. Ujeedkoodu waxa uu ahaa inay dhameystiraan inta ku hartay dhismaha ee Allah ka nabad yeela qaraxa hore. Abshir Maxamed Xaaji Buule oo kamid ah dhagarqabayaasha saaka lagu fuliyo xukunka ayaa ka sheekeeyay sida ay uga gudbeen goobta qaraxa. labada kontarool markaan soo marnay okay hadeen waa soo dhaafnay labada kontarool markaan soo dhaafnay barqadana soo gudub meesha waa kaasana la marka diyaar galowna labada kontarool meesha markaan soo dhaafnay labada kontarool marka ay imaan barqada waa isqalay barqada marka isqalay wax yar ka baad firka markuu dagay ooradii socota aan soo galnay marka soo gal gaareen waa iska faranay hotelka la galay sidii ku tagaalay Farxaan Maxamed Samatar ayaa isna ku daray in ay diiradda u saarneed kaliya halka uu ka yeero dhawaqa oo aysan u fiirin xabadaha ay ridayaan ciroole iyo caruur. Bidii hadda wixii inta badnaa ta qarxiya burburiyay baan anagu marka qaylada iyo sawaxanka meesha ka yarta aan baxbad ku ridayno. Cabdinaasir Dhaqan Xasan ayaa isna isaga maadeystay leenta dadka dhimashadoodu gaartay 18 qof halka dhaawaca uu gaaray 47 kale. Kuna ogolanayday maxaa war ma hayaan meel waxa jooga la dilay dadka meesha ku geeriyooday waxa kamid ahaa Qadar Saciid Cumar oo sanad jir ahayd Maxamed Saciid Cumar oo 2 jir ahaa Cumar Maxamed Cumar oo 3 jir ahaa kuwaas oo la geeriyooday ayadood Madiina Cumar Maxamed oo dhabta ku haysa gabarta sanad jirka ahayd qoyska ayaa booqasho ugu yimid awoowahood oo kamid ahaa dadka deegaansaday hotelka sidoo kale dadka ku dhintay weerarkaasi waxa kamid ahaa oday dhaqameed culumo iyo dad kale oo kamid ahaa indhaha bulshada. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa 30 May 2018 ku riday xukun dil ah. Maanta ayaa lagu fuliyay xukunkii ay maxkamadda ku riday waxaana fulinta kadib la hadlay warbaahinta gaashaanle sare Cabdullaahi Buule Kami xeelaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. Taariikhdu markay ahayd 22 bishii shanaad 2018 waxaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal Farxaan Maxamed Samatar 21 jir ah ina Safiya Maxamed ku dhashay Galguduud Cabdinaasir Dhaqan Xasan 19 jir ah ina Xabiibo Maxamuud ku dhashay Gedo Abshir Maxamed Xaaji Buule 21 jir ah ina Xabiibo Maxamed ku dhashay Saakow kuwaas oo xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiyada kala ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis iyo in ay ka mid ahaayeen koox weerar argagixiso ku qaaday hotel Naasaha Hablood 2 taariikhdu markay ahayd 28 bishii 10 2017 weerarkaas oo sababay khasaare naf iyo maal ah waxaana ku geeriyooday weerarka inta la hubiyay 18 ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen 47 ruux oo kale. taariikhdu markay 30 bishii shanaad 2018 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday weerarkii Naasaha Hablood 2 taariikhdu markay 28 bishii 10 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 10 bishii 7 2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ah ee maxkamadda ciidamada qalabka sida wabillahi tawfiiq. Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.